maxaa isbedelay ayaynu odhan karnaa kadib bedelaadda magacii guud ee ka dhexeeyay shabakadaha internetka ee Instagram-ka, WhatsApp-ka iyo weliba Facebook-ga? maxayse tahay eedeymaha loo jeedinayo Facebook ee ku saabsan magacan cusub ee habeen hore shaashadaha soo galay ee Meta? sidoo kale maxaa ka jira xanibaadda ay shirkadda WhatsApp-ku ay ku joojin doonto in abkeeda lagu isticmaalo qaar ka mid ah taleefannada dunida laga isticmaalo? shirkado intee leeg ayaa si khusaysa arrintani? mase laga yaabaa daawada inuu ka mid yahay taleefankaagu mobiliska maalmaha soo socda aanu gebi ahaanba u shaqayn doonin applicationka WhatsApp-ku? arrimahan iyo faahfaahimo kale oo ku saabsan internetka khiyaaliga ah ee Metaverse ayaynu maanta muuqaalkeena ku faahfaahin doonaa haddii alla idmo. kadib markii khamiistii shalay ahayd uu mulkiilaha Facebook ku dhawaaqay inuu bedelay magacii guud ee shirkadihiisa midayn jiray ee ahaa Facebook kuna bedelay magaca cusub ee Meta, ayaa waxaa iska soo daba dhacay eedeymo badan oo loo jeedinayo Mark Zuckerberg oo ah mulkiilaha shirkadda Facebook. shirkadda Facebook ayaa cadaadis iyo cabashooyin badan oo isa soo tarayay waajahaysay muddooyinkii u dambeeyey, laga soo bilaabo eedayntii lagu eedeeyey inay shirkaddu garab ku siisay dowladda Ruushku inay faragelin toosa ku samayso doorashadii ka dhacday Mareykanka sanadkii 2016. eedayntaasoo ku saabsanayd inay shirkaddu ka caawisay Ruushku inay faragelin ku sameeyaan doorashadaasi. eedeymaha ayaa qaab taxane ah isaga soo daba dhacayay ilaa iyo laga soo gaaraya dhacdadii ka dhacday Cambridge Analytica ee muujinaysa in la taliyayaasha baraha bulshada ee ololaha Donald Trump ay si khaldan u isticmaaleen xogta malaayiin qof oo ka mid ah isticmaalayaasha Facebook, taasoo Facebook gaarsiisay dhibaato iyo fadeexad aanu mid la mid ah abidkii la kulmin, maadaama oo lagu eedeeyay inay iyagu bixiyeen xogta malaayiinka qof ee profileskooda sida khaldan loo isticmaalay. sidoo kale dokumentiyadii dhowaan ay ka faafisay haweeneyda Frances Haugen la dhaho ee dhowaan miidiyaha aadka looga hadal hayay ayaa shirkadda ku noqday nabar weyn oo ay kasoo kabashadiisu adag tahay. sidaas darteed ayay maamulka shirkaddu aad uga walaacsan yihiin inay waayaan muhiimadii hore ee ay shirkaddoodu lahayd. arrintan ayaana sababaysa inay ku dhaqaaqaan magac bedelidan degdega ah si ay u tirtiraan ceebahaas iyo dhaleecaymahaas muddada soo socday. waxaana taariikhda lagu hayaa oo jira shirkado badan oo sidoon oo kale magacooda u bedelay sababo la xidhiidha inay ka cararayeen sumcad xumo soo waajahday, oo ay ka mid yihiin shirkadda sigaarka ee Marlboro oo waqtiyada ka mida magaceeda u bedeshay sumcad xumo soo waajahday darteed. dib u habaynta shirkadda Facebook lagu sameeyey ayaa kusoo beegmaysa xilli Koongareeska Mareykanku uu ku hanjabay in uu sharciyo adag ka soo saari doono warshadaha tiknoolajiyadda, iyadoo qaar ka mid ah sharci dejiyayaashu ay sheegeen in ay aad u kortay halista shabakadahan internetku si ka daran sidii tubaakadii iyo maanduuriyayaashu u korayeen qarnigii ina dhaafay. Facebook waxa ay ku socotaa qalalaase aad u xun. in ay imika magaca bedelaadna waxay muujinaysaa inay wax badan qarinayaan, ayuu yidhi Professor Bertrand Malafia oo ah professor suuqgeyneed oo ka tirsan jaamacadda Georgetown mar uu dhaleecayn adag u jeedinayay shirkadda Facebook. dhanka kale haddii aynu eegno isbeddelka internetka iyo furitaanka isticmaalka khadka 3D-ga ah ee Metaverse, daraasado aad u badan oo la sameeyey muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa lagu sheegay in ay Facebook tahay shirkad gabowday oo ay dadka waaweyn u badan yihiin isticmaalkeeda. dadka ahaan ka yar 30 sano ayaa waqti aad u yar ku qaatay isticmaalka Facebook oo weliba fariimo yar isku weydaarsada, sida lagu sheegay warbixin la diyaariyay bishii Maarso oo ay soo tebisay Bloomberg. dhanka kale, shabakadda Instagram oo ay shirkaddu u aragto dhuumo loogu talagalay isticmaalayaasha da'da yar, Zuckerberg ayaa isniintiina dhaaftay u sheegay maalgashadayaasha shirkadiisa inay dib u habeyn ku sameynayaan shirkadda si ay u soo jiidato dhalinyarada da'doodu u dhaxayso 18 sano ilaa 29 jirka. wuxuuna sheegay inay arrintaas tartan baan kula geli doonaan shabakadaha kale ee internetka ee iyagu ku guuleystay hanashada dhalinta caalamka. waxa uuna carabka ku adkeeyey in ay shirkadda TikTok tahay tartamaha ugu weyn ee ay waajihi doonaan. haddaba intaas haddii aynu isla fahanay daawade, halkan ayay ka bilaabmaysaa sheekada Metaverse, waana dadaal ay shirkaddu ugu jirto hanashada flowerska da'da yar leh. اختراع Metaverse ayaa hadda tijaabadii ka baxay oo u diyaara in la isticmaalo, sida uu khamiistii muuqaal toos ah dadka kula wadaagay Zuckerberg isagoo dhex sabaynaya dunidan khiyaalka.
dhanka kale shabakada WhatsApp ee ka tirsan shirkaddan hadda la magac baxday Meta ayaa sheegtay inay malaayiin isticmaalayaal ka joojinaysa isticmaalka application-keeda laga bilaabo bishan ina soo haysa ee November. shirkadda ayaa ku sababaysay in noocyada taleefanada ay shaacisay. shirkadda oo 53 taleefan sheegtay inay ka mamnuuci doonto isticmaalka application-keeda ayaa ku sababaysay in aanay gabi ahaanba la jaan qaadi karin taleefanadaasi update-yada cusub ee shirkaddu soo wado. waxaana ku jira qaar ka mid ah modelada ay soo saaraan shirkadaha dunida ugu caansan sida shirkadda Samsung ee ku shaqeysa nidaamka Android-ka iyo waliba shirkadda Apple ee ku shaqeysa nidaamkeeda u gaarka ah ee iOS-ka. noocyada mobiliska aan WhatsApp ku shaqeyn doonin maalmaha soo socda linkiga hoose ee description-ka ayaad ka akhrisan kartaa daawade. inaad nagu soo biirtaa sharaf ayay noo ahaan lahayd daawade haddii aadan weli channelka subscribe saarin. intaas ayaynu kusoo gabagabeynaynaa muuqaalkeena maanta.